halkan oo ah goobtii uu ka dhacayay shirka looga hadlayay arrimaha Soomaaliya oo ay martigelisay dawladda Ingiriiska. shirka ayaa waxaa furay ra'iisul wasaaraha dalkan Ingiriiska Theresa May, isla markaana waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay wufuud aad u fara badan oo ka kala socday dawladaha caalamka. waxaanu waqti u helnay inaanu ku wareysano ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Soomaaliya iyo wasiirka gaashaandhigga, waxaana ay nooga warrameen waxyaabihii ka soo baxay shirkii maanta halkan ka dhacay. haddana waxaa inala jooga ra'iisul wasaare ku-xigeenka dawladda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed. ra'iisul wasaare ku-xigeen, waxaad guud ahaan nooga warantaa shirkii maanta maxaa ka soo baxay, waxyaabaha aad nooga sheegi karto? bismillaahi raxmaani raxiim. telefishinka qaranka Soomaaliyeed waa ka mahad celinaya, waa idinka mahad celinaya fursadda ay siiseen qaaliga ah. waa ku mahadsantihiin. shirka London ay wafdiga dawladda Soomaaliyeed ka socda ee madaxweynuhu hogaaminaya yimaadeen Doraato, waxaa horta hordhaciisii uu bilaabmay shalay. waxaa jiray shir lagaga hadlayay bulshada rayidka ah, qurba joogta iyo dhalinyarada iyo doorkii ay ka qaadanayso siyaasadda oo shalay dhacay. shir labaad baa dhacay oo qaybta dhaqaalaha iyo ganacsiga lagaga hadlayay, ganacsatada waaweyn ee Soomaaliyeed ama ha noqoto xawaaladaha ama ha noqoto ganacsatada kale isgaarsiinta, qaybaha serviceka oo dhan ama ha noqoto ganacsiga kaleba ay ka soo qayb galeen oo isaguna aad u wanaagsanaa. madaxweynuhu kii hore waa soo xidhay, kii dambana waa furay, si fiican buu u dhacay. saaka waxaa la isugu yimid shirkan oo ay dawladaha waaweyn ee saaxiibka nahay, dawladaha gobolka Afrika, kuwa geeska Afrika ku yaal saaxiibada nahay, dawladaha Carabeed, dawladaha Yurub, Maraykan, aad beesha qaramada midoobay, midowga Afrika, jaamacadda Carabta, ururka Islaamka, dhammaantood laga soo qayb galay. shirkaas waxa uu ku bilaabmay oo lagaga hadlayay arrinta masiibada abaaruhu ay la kowsatay dawladdu markii la doortayba ay dhaxashay, sidii loogu jawaabi lahaa. wax badanna runtii la qabtay. dhibaatooyin waa jiraan, ilaa abaariyoo baahay, xanuunna ay dilaacay. waxa kaloo ay dadkii ka soo qayb galay shirkaasi ballan qaadeen inay gacan weyn ka geysan doonaan. qaramada midoobay xogeyaheeda guud baa joogay oo in aad gacan looga geysan doono sidii abaaraha loola dagaalami lahaa. ugu muhiimsanna waxa weeye abaartu sanad walba way imanaysaa. 2011 baynu ogeyn, haddana waxaynu ognahay imaka inay timid kala hore jirtay. sidee loogu talagalaa qorshe joogto ah oo dheer oo lagula dagaalamo abaaraha? waa ogtihiin roobku markuu da'o webiga Shabeelle waa fatahayaa, webiyadii biyihii badday gelayaan. marka in roobkii la qabto oo waxa weeyaan waa isbeddelka cimilada, waxyaabahani waa keenaya in beeraha nidaamka waraabinta beeraha ama irrigationka la xoojiyo, wax soo saarka beeraha la xoojiyo, calaf la sameeyo, la dhigo xoolaha loo dhigo si ay xooluhu calafka u cunaan, oo mar dhawaaba raashinka la kaydiyo, la badiyo. marka waxyaabahaas oo dhan baa lagaga hadlay oo la isla qaatay. arrinta labaad ee aadka looga hadlay waxa weeyaan qaybta qorshaha amniga qaranka oo wejigiisii koowaad la galay, kii labaad imika la gelayo. waxa kaloo iyaduna ku jirta dhinaca deymaha lagu leeyahay oo imika qaybta labaad ee la geli doonaa. marka run ahaantii rajadu aad bay u fiican tahay. dadkii ka soo qayb galay shirka ee beesha caalamka, dawladihii gobolka, dawladda Soomaaliyeed, madaxweynaha, dhammaan rajo weyn baanu qabnaa in maanta shirku markuu dhammaado dib loo noqdo qolo waliba, hadday tahay beesha caalamkii, hadday tahay dawladda federaalka Soomaaliyeed, wixii lala noqday ee hawl ah fulinteedii si dhaqso ah loo bilaabi doono la geli doona. aad waa mahadsantahay adiga mudan. haddana waxaa inala jooga wasiirka difaaca dawladda federaalka Soomaaliya mudane Rashiid Cabdullaahi. mudane, arrimaha ugu muhiimsan adiga aan kaa weydiinayno ee dhanka amniga ah shirka maanta maxaad is leedahay waa ay ka soo baxeen? amniga laba qaybood buu ahaa. qaybtii hore hadda dhamaatay, qaybtii labaad baa hadda lagu laabanayaa. wax fiicanna waa ka soo baxayaan oo ah in magaranaysaa dhinaca amniga dawladda Soomaaliya ay ka caawiyaan saaxiibadeeda awalba garab taagnaa, iyagoo magaranaysaa markaan isku duuban yihiin, hal dhinacna wax iskala arkayaan haddii la yidhaahdo. taasaan ku rajaweynaa. cadowga Soomaaliyeed oo ummadda gumaada waad ogtihiin dhibaatooyinka ay ku hayaan dadku. waa xilliga magaranaysaa xilliyada ay isleeyihiin inta kala wareega lagu jiro oo xilkii lala kala wareegayo dawladda cusubna ay hananayso howlaheeda, ay isleeyihiin fursad bay idin tahay dadka dhibaataynayaan. marka taasna insha Allah looga harimaayo, waana hawshaas hawl markastaba dawladduna ahmiyad weyn ay siinayso, markastana boga koowaad ugu jiraya haddii la yidhaahdo inay la dagaalanto argagax.